kulan ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira ayaa lagu falanqeeyay xaaladaha amniga siyaasadda dalka iyo doorashooyinka dalka ee la filayo inay qabsoomaan sanada 2022 xisbi siyaasadeed ee kulanka Muqdisho ku yeeshay ayaa dood dheer kadib isla garwaaqsaday qodobo ay ku sheegeen inay yihiin kuwa saldhig u noqon kara jihaynta iyo mideynta ummadda Soomaaliyeed kadib kulanka oo ay saxaafadda dibad joog ka ahayd waxa warbaahinta la hadashay waxyaabihii la isku afgartana warbaahintu waa akhrisay Liban Fawziya oo ahayd qabanqaabada shirka axsaabta kulmay ayaa xukuumadda ra'iisul wasaare Kheyr ugu baaqay inay daadajiso nidaamka doorashooyinka una gudbiso golaha shacabka si ay kaga doodaan waxa sidoo kale xisbiyada kulmay ay ku baaqeen inay muhiim tahay in doorashada la filayo inay dhacdo sanada 2020 aysan ka dib dhicin waqtigeeda xisbiyadaasi waxay isla qaateen qodobada soo socda kow in xukuumaddu si degdeg ah ugu gudbiso golaha shacabka sharcigii doorashooyinka ugu dambeyn bisha May ee bisha dambe ah 2019 si baarlamaanku uu waajibaadkiisa uga gudto oo u doodo loogana soo saaro sharci rasmi ah xisbiyadu waxay hoosta ka xariiqeen in doorashadu dhacdo waqtigii loogu talagalay iyadoo ku imaanaysa nidaamka axsaabta badan oo ah hal qof hal cod saddex xisbiyadu waxay maamul goboleedyada u sheegayaan farayaana inay ogolaadaan in xisbiyadu ka furtaan laamihii uu sharcigu ku waajibiyay xisbiyada oo ku qoran sharciga axsaabta inay ka furtaan gobolada xafiisyadii iyo laamihii isla markaana loo fududeeyo howlahaas afar xisbiyadu waxay aad u soo dhaweynayaan baaqi ka soo yeedhay gudoomiyaha doorashooyinka madaxa bannaan Marwe Xaliimo Ismaaciil ee ahaa in ay guddiga doorashooyinku u diyaarsan yihiin in doorasho dhacdo xilligii loogu talagalay waxaana xisbiyadu cadeynayaan inay iyaguna diyaarsan yihiin oo waqtigoodii ay u diyaar yihiin in doorashadu ay galaan shan xisbiyadu waxay soo jeedinayaan in xukuumaddu la timaado barnaamij siyaasadeed amni iyo siyaasadeed oo dhammaystiran oo ku wajahan amniga iyo dhaqaalaha si qaranku uga baxo jahawareerka iyo amni xumada hadda jirta lix waxay xisbiyada 12 ahi ay ku talinayaan in la dhiso lana xoojiyo ciidan tayo leh oo midaysan isla markaana uu helo xuquuqdiisa oo dhammaystiran si joogto ah toddoba xisbiyadu waxay ku talinayaan si loo helo amni loona sugo nabadgelyada shacbiga Soomaaliyeed in laga faa'iideysto khibradda iyo aqoonta dadka u leh dalka dhex jooga aadna ugu faradhuuban arrimaha amniga iyo difaaca dalka oo looga faa'iideysto waqtigan hadda socda dhibaatooyinka yaala si ay talooyinkoodana u dhiibtaan ugana howlgalaan xisbiyadu iyagoo aad uga xun xasuuqa iyo dhimashada macna darrada ee ummadda Soomaaliyeed ku socda waxay tacsi u dirayaan dhammaan intii ku geeriyootay xasuuqyada kala duwan ama qarax ha noqdo ama dil khaas ah ha noqdo iyo wixii la mid ah kuwaas oo ugu dambeeyay wiilkii yaraa ee lagu dilay bajaajka bisha kowdeedii bishan Abriil kowdeedii 2019 xisbiyadu gabagabadii waxay isugu yimaadeen maanta inay sidoo kale uga mahad celiyaan beesha caalamka garab taagnida ay garab taagan yihiin Soomaaliya doorashooyinkana ay diyaar u yihiin ay kana go'an tahay inay doorasho xor ah oo xalaal ah oo ah hal qof hal cod inay ka dhacdo 2020 dalka taasoo annaguna xisbi ahaan aan u diyaarsanahay guddiga doorashooyinkuna ay u diyaarsan yihiin loona baahnayn in dib loo dhigo ee loo baahaya in waqtigeedii la qabto si dalku uu hana qaado dimuqraadiyaduna ay socoto beesha caalamka xisbiyadu waxay ka codsanayaan inay gacan buuxda ka siiso suuragelinta doorashadaas
si kastaba ahaatee kulankan ayaan ahayn kii ugu horeeyay ee Muqdisho ay ku yeeshaan qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee dalka, balse waa kulankii ugu horeeyay ee lagu lafaguro arrimaha ammaanka, xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo doorashooyinka la filayo inay dhacaan 2020.